ardayad ayaa si qarsoodi ah uga luntay gurigeeda xilli habeen madow ah iyadoo aan ka tegin wax calaamad ama raad ah. booliska ayaa markiiba bilaabay baadigoob, wax yar kadibna waxaa soo baxay xaqiiqo aad u xun oo naxdin leh. tallaabo ayay baadhayaashu isugu geeyeen caddaynta, iyagoo kashifay sheeko ka naxisay dalka oo dhan. Eve Carson waxay dhalatay 19 bishii 11 sannadkii 1985 magaalada Athens ee gobolka Georgia. tan iyo yaraanteedii waxay ahayd qof aad u dadaal badan oo hadaf cad leh. xilligii dugsiga sare waxay ahayd guddoomiye ku-xigeenka ururka ardayda, waxayna si tabaruca ah uga shaqayn jirtay xarumaha dadka waayeelka ah iyo kuwa dhallinyarada dhibaataysan. sidoo kale waxay ka shaqaysay xafiisyada dowladda iyo goobaha lagu sameeyo cilmi baadhista sayniska iyadoo weli ardayad ah. markii ay ku qalin jebisay dhibco aad u sarreeya, Eve waxay dhigatay jaamacadda waqooyiga Carolina, halkaas oo ay isku marbaranaysay cilmiga siyaasadda iyo cilmiga nolosha. aqoonteeda aadka u sarraysa waxay ku heshay deeq waxbarasho oo qaali ah. waxay si dhaqso ah u noqotay hogaamiye caanka ah jaamacadda, iyadoo door muhiim ah ka qaadatay ururo badan oo ardayda ah. halkaas kumay joogsan. Eve waxay sii waday dadaalkeedii samafalka, waxayna xataa cilmiga sayniska ka dhigi jirtay dugsi hoose. waxay u safartay dalal shisheeye si ay dadka u caawiso, iyadoo xagaasna dhan ka caawinaysay dhakhaatiirta dalka Ecuador, hal xilli dugsiyeedna wax ku baranaysay dalka Kuuba, waxayna ku biirtay koox cilmi baadhiseed oo joogtay dalka Masar. shaki la'aan, Eve waxay ahayd mid ka mid ah ardayda ugu fiican jaamacadeeda. waxay lahayd yoolal waaweyn oo mustaqbalka ah, waxayna si joogto ah ugu socotay sidii ay u gaadhi lahayd. xataa ka hor intaanay qalin jebin, waxay heshay dalab shaqo oo ka yimid shirkad weyn, waxayna qorshaynaysay inay shaqadeeda bilowdo isla markay shahaadada qaadato. bishii labaad, Eve waxay ahayd 22 jir, waxayna ku jirtay sanadkeedii ugu dambeeyey ee jaamacadda. xilligaas waxay guri ka baxsan jaamacadda la deganayd koox saaxiibadeed ah oo dhow. habeenkii 5tii bishii 3aad, qiyaastii 1:15 habeennimo, saaxiibadii ay isla deganayeen ayaa u baxayay xaflad. waxay ku martiqaadeen Eve inay raacdo, laakiin way ka cudur daaratay, iyadoo dooratay inay guriga joogto si ay u barato casharadeeda ku soo fool leh. saaxiibadeed waxay ka tageen iyada, kumana soo laaban guriga ilaa qiyaastii 4:15 subaxnimo. markii ay saaxiibadeed guriga ku soo laabteen, markiiba waxay dareemeen in wax weyn ay si ka yihiin guriga. albaabka hore ee guriga ayaa furnaa, laydhadhkuna weli way shidnaayeen. laakiin Eve meelna laguma arag, sidoo kale gaadhigeediina meeshiisii ma yaalin. arrintu caqligal may ahayn. maxay Eve xilli habeen bad ah guriga uga baxaysaa? maxayse albaabka oo furan uga tegaysaa iyadoo laydhadhku shidan yihiin? waxay isku dayeen inay wacaan, laakiin may qabanayn taleefanka. inkasta oo ay walwalsanayeen, haddana waxay rajo ka qabeen in ay wax degdeg ahi ku soo kordheen oo ay ku qasbanaatay inay baxdo. sidaa darteed waxay sugayeen inay soo noqoto. laakiin ilaa maalintii xigtay, Eve weli ma aysan soo laaban, warna lagama helin. halkaas ayay mid ka mid ah saaxiibadii Eve go'aansatay inay booliska u sheegto in gabadhii la yahay. markii ay boolisku maqleen xaaladda, waxay u sheegeen wax naxdin leh. in subaxnimadii hore ay heleen meydka gabadh dhallinyaro ah, laakiin may garanayn cidda ay tahay. markii ay saaxiibadii tuseen sawirka gabadhaas, markiiba waxay garteen inay tahay Eve. waxaa soo baxday in qiyaastii 5tii subaxnimo boolisku ay wicitaan ka heleen haweenay deggan meel qiyaastii 1 mayl u jirta guriga Eve. haweenaydaas waxaa hurdada ka soo toosiyey dhawaqa rasaas iyo qaylo aad u naxdin badan. markii ay boolisku goobtii tageen, waxay heleen meydka gabadh dhallinyaro ah oo dhulka jifta. ma haysan wax aqoonsi ah, taleefan iyo wax kale oo lagu garto toona. waxaa keliya ee ay xaqiijiyeen xilligaas waxay ahayd in dhowr jeer la toogtay. haweenaydaas waxaa hurdada ka soo toosiyey dhawaqa rasaas iyo qaylo aad u naxdin badan. markii ay boolisku goobtii tageen, waxay heleen meydka gabadh dhallinyaro ah oo dhulka jiiftay. ma haysan wax aqoonsi ah, taleefan iyo wax kale oo lagu garto toona. waxaa keliya ee ay xaqiijiyeen xilligaas waxay ahayd in dhowr jeer la toogtay. markii ay saaxiibadii xaqiijisay inay Eve tahay, baadhayaashii waxay weydiiyeen saaxiibadii ay isla deganayeen xilliyadii ay ugu dambaysay si ay u ogaadaan siday wax u dhaceen. 1:15 habeennimo, Eve waxay guriga ku baranaysay casharadeeda, laakiin 5tii subaxnimo meydkeeda ayaa la helay, isagoo jira meel qiyaastii 1 mayl u jirta gurigeeda.
su'aashu waxay noqotay sidee ayay ku tagtay meeshaas, yaana ka dambeeyey falkan. maadaama gaadhigeedii la waayey, baadhayaashu waxay ka shakiyeen in la dhacay. shakigaas ayaa sii xoogaystay markii guriga laga waayey boorsadeedii lacagta iyo kaadhadhkii ay lacagta kaga bixi jirtay, kuwaas oo aan agteeda laga helin markii la toogtay. dhakhaatiirta baadhista samaysay waxay xaqiijiyeen inaanay jirin wax calaamado ah oo muujinaya in gabadha la faraxumeeyey, taas oo meesha ka saartay in arrintu damac tahay. markii ay boolisku baadheen diiwaanka taleefankeeda, waxay arkeen in calaamadii ugu dambaysay ee taleefankeeda laga qabtay ay ka timid munaarad ku taal meel u dhow jidka weyn ee magaalada dibaddeeda ah, laakiin taleefankii laftiisa lama helin. waxay u muuqatay in qofkii dilka geystay uu meel kayn ah ku dhex tuuray. kadib, baadhayaashu waxay heleen raadkii ugu horreeyey ee muhiimka ah. gaadhi la mid ah Kyiv ayaa laga helay meel laga tegay oo dhowr mayl u jirta gurigeeda. boolisku waxay markiiba gaadhigii u direen xafiiska baadhista si looga baadho faraha iyo hiddaha qofkii taabtay. isla xilligaas, khubaradu waxay baadheen kombuyuutarkii Kyiv ee ay casharada ku baranaysay, waxayna ogaadeen inuu shidhnaa oo laga shaqaynayay ilaa 3:00 subaxnimo. tani waxay muujisay in Kyiv ay guriga joogtay ugu yaraan 2 saacadood kadib markii ay saaxiibadeed xafladda u baxeen. intaas kadib ayay dhacday inay si u tagto meeshii meydkeeda laga helay ee 1 mayl u jirtay guriga. xilligaas, warkii dilka Kyiv wuxuu ku faafay magaalada oo dhan, ardaydii jaamacadduna aad bay uga naxeen. ku dhowaad qof kastaa wuu garanayay gabadhan, waayo waxay si weyn ugu lug lahayd ururada ardayda ee ugu waaweyn. dadku way rumaysan waayeen inay geeriyootay. murugada waxaa barbar socday cabsi weyn oo dadka soo wajahday. dadku waxay bilaabeen inay u cabsadaan badqabkooda, maadaama boolisku aanay weli hayn raad dhab ah oo lagu kalsoonaan karo. tani waxay keentay in booliska looga soo sheego macluumaad aad u badan. ardaydu waxay soo sheegayeen wax kasta oo ay ka shakiyaan iyagoo rajaynaya inay baadhista caawiyaan. laakiin in kasta oo macluumaad badani soo gaadhay booliska, haddana midna may soo dhoweyn in la qabto qofkii falka geystay. ugu dambayntii, baadhayaashu waxay heleen raad aad u muhiim ah. maadaama ay u muuqatay in qofkii dilka geystay uu qaatay kaadhadhkii lacagta ee Kyiv, boolisku waxay baadheen dhaqdhaqaaqa xisaabteeda, waxayna heleen wax weyn. 18 daqiiqo kadib markii ay Kyiv ugu dambaysay kombuyuutarkeeda, ayaa qof wuxuu xisaabteeda kala baxay lacag dhan $700 isagoo adeegsanaya mashiinada lacagta laga bixiyo. lacagtaas waxaa laga bixiyey 2 goor oo kala duwan. qofkaas ayaa isku dayay inuu lacag kale oo intaas ka badan la baxo, laakiin waa laga hor istaagay maadaama uu gaadhay xadkii loogu talagalay in maalinkii lala baxo. mashiinkii lacagta laga bixiyey wuxuu ku yaalay meel u dhow xarun laga dukaamaysto oo ku taal darafka kale ee magaalada. baadhayaashu waxay markiiba codsadeen muuqaalkii kamaradaha ilaalada. sidii ay rajaynayeenna, waxay heleen muuqaal cad. muuqaalkaas waxaa ka muuqday nin dhex fadhiya gaadhigii Kyiv, kaas oo isticmaalaya kaadhkeedii lacagta. kursiga dambe ee gaadhigana waxaa ka muuqday qof kale. baadhayaashu waxay ka shakiyeen inay Kyiv tahay qofkaas, laakiin tayada sawirka ayaa aad u xumayd oo waa la xaqiijin waayey. khubarada ayaa isku dayay inay sawirka qurxiyaan si uu u kala cadaado, laakiin dadaalkoodii ma guulaysan. dhanka kale, boolisku waxay ogaadeen in ninkaas shakiga laga qabay uu isku dayay inuu kaadhka Kyiv ka isticmaalo mashiinno kale oo badan oo magaalada ku yaala, balse mashiinnadaas ma ay lahayn wax kamarado ah. arrintu waxay sidaas ahaataba, 7 bishii 3 ayay boolisku heleen digniin kale oo ku saabsan in lacag lala baxayo. qiyaastii 2:15 habeenimo, ninkii laga shakisanaa ayaa tegay dukaan furan 24 saac, wuxuuna isku dayay inuu mashiinka lacagta kala baxo, laakiin bangigii ayaa diiday. booliska ayaa ku degdegay dukaankaas oo ku yaalay magaalo deris ah. nasiib wanaagna goobtu waxay lahayd kamarad shaqaynaysa. markii ay daawadeen muuqaalkii habeenkaas, waxay arkeen qof isku dayaya inuu isticmaalo kaadhka Kyiv. laakiin wax lala yaabo ayay ahayd, qofka kamarada ka muuqday ma ahayn ninkii hore loogu arkay muuqaalkii hore ee mashiinka lacagta. baadhayaashu waxay markaas ogaadeen inay suurtagal tahay inay dad badani ku lug lahaayeen dilka Kyiv, ama qofkii dilka geystay uu kaadhka u dhiibay qof kale oo la shaqaynayay. waxay isku dayeen inay aqoonsadaan qofkaas labaad, laakiin sidii hore oo kale, muuqaalku aad buu u xumaa. sidaa darteed, boolisku waxay caawimaad weydiisteen dadweynaha, iyagoo sawiradii kamaradaha laga helay u qaybiyey saxaafadda si loo garto eedaysanaha. maadaama kiisku ahaa mid ay dadka oo dhammi la socdeen, booliska waxaa ku soo dhacay wicitaanno aad u badan.
inkasta oo dad badani soo hadleen haddana ma jirin xog horseeday in gacanta lagu soo dhigo Gilaaga Eve. wax kasta waxay isbedeleen 12 bishii saddexaad markii uu soo hadlay qof aan magaciisa sheegin oo bixiyay xog aad u muhiim ah. qofkaas ayaa sheegay inuu aqoonsaday ninkii labaad ee ka muuqday dukaanka, wuxuuna magaciisa ku sheegay diyaariyo Atwater. boolisku waxay bilaabeen inay baadhaan taariikhda Atwater, waxayna heleen xog naxdin leh. inkasta oo uu ahaa 21 jir haddana wuxuu lahaa taariikh dembiyeed aad u ballaaran oo ay ka mid yihiin xatooyo, weerar, daroogo iyo dembiyo kale oo badan. inkasta oo uu dhowr jeer xabsiga galay, haddana mar kasta xilli hore ayaa xabsiga laga sii dayn jiray. baaristii iyo qabashadii dembiilayaasha waxay sidoo kale ogaadeen in 2 maalmood kadib dilkii Eve, Dariya loo ballansanaa inuu hor yimaado maxkamadda isagoo lagu haysto inuu siday bastoolad xilli uu ku jiray cafis shardi ah. baarayaashu waxay dib u eegis ku sameeyeen sawiradii hore ee dembiilayaasha ee Atwater, waxayna isbarbardhigeen muuqaalkii dukaanka, iyagoo xaqiijiyey inay isku mid yihiin. kolkaas ayaa waxa uu caddaatay inay gacanta ku hayaan qofkii saxda ahaa. sidoo kale waxay ogaadeen in Dariya uu deganaa meel u dhow dukaanka, taas oo ku kaliftay baarayaasha inay si toos ah u aadaan gurigiisa. markii la su'aalay, Dariya wuxuu dafiray inuu wax lug ah ku lahaa dilka. laakiin muuqaalkii dukaanka ayaa bixiyey caddayn ku filan oo xabsiga loogu taxaabo. intii baaristu socotay, boolisku waxay ogaadeen in Dariya uu xiriir joogto ah la lahaa wiil 17 jir ah oo lagu magacaabo Lawrence Lovett, kaas oo lahaa diiwaan dembiyeed hore inkastoo uu yaraa. markii baarayaashu eegeen sawirka Lawrence, waxay markiiba aqoonsadeen inuu ahaa ninkii ka haynayay gaariga Eve ee ka muuqday muuqaalkii ugu horreeyey ee ATM-ka. si kastaba ha ahaatee, si ka duwan Dariya, Lawrence wuxuu iska caabiyey in la xiro, isagoo isku dhex xiray gurigiisa, taas oo ku qasabtay ciidamada inay u yeeraan cutubka gaarka ah ee SWAT. markii ciidanku qabteen Lawrence, isna wuxuu dafiray inuu wax lug ah ku leeyahay. labadii eedaysane waxaa lagu soo oogay dembiyo, waxaana lagu hayay xabsiga iyadoo la sugayo maxkamadayntooda. maadaama aanu midkoodna diyaar u ahayn inuu la shaqeeyo booliska, baarayaashu waxay bilaabeen inay caddaymaha dembiga u maraan waddo kale. xogta taleefannada ayaa muujisay arrin muhiim ah. habeenkii uu dhacay dilkii Eve, 2 taleefan ee eedaysanayaasha waxay ku xirnaayeen munaaradda isgaarsiinta ee u dhow agagaarka gurigeeda, inkastoo ay labadooduba deganaayeen magaalo kale. baarayaashu waxay tuhunsan yihiin in Dariya iyo Lawrence ay si nasiib ah u doorteen Eve, iyagoo raadinayay qof ay dhacaan, markaasna ay arkeen inay guriga keligeed joogto habeenkaas dambe. sida ka muuqata lacag bixinta ATM-ka, waxay u muuqataa inay ku qasbeen inay u kaxayso goobo dhowr ah si ay u dhiibto kaarkeeda lacagta. markii ay gaareen xadkii lacag bixinta ee ahaa $700 maalintii, waxay u kaxaysteen meel dhir badan oo ku taal duleedka magaalada, halkaasna ay ugu dambayntii ku dileen. maadaama uu dembigu ahaa mid aad u naxdin badan, xeer ilaalintu waxay shaaciyeen inay doonayaan in ciqaabta dilka ah lagu xukumo Dariya. qiraalkii Dariya iyo xukunkii maxkamadda, xaalka Lawrence ayaa ka adkaaday kii saaxiibkiis. maadaama Lawrence uu ahaa qof aan qaangaarin, ciqaabta ugu adag ee uu wajihi karo waxay ahayd xabsi daa'im. xeer ilaalinta oo dareensan in caddaymaha ay hayaan laga yaabo inay ku filnaan waayaan xukunada qaarkood, waxay Dariya u soo bandhigeen heshiis, kaas oo ahaa inuu dembiga qirto si looga dhaafo khatarta ciqaabta dilka ah. Dariya waa uu aqbalay heshiiskaas, wuxuuna qirtay in isaga iyo Lawrence ay habeenkaas u soo baxeen inay dhac geystaan si ay lacag degdeg ah u helaan. wuxuu sharaxay in Lawrence uu taleefan kula soo xiriiray, isagoo u soo jeediyey inay bartilmaameedsadaan qof jooga dhismaha jaamacadda. iyagoo gaari la dhex maraya xaafadda ayay indhahoodu qabteen Eve oo daaqadda gurigeeda ka muuqata, halkaas ayayna ahayd markii ay go'aansadeen inay falka fuliyaan. iyagoo hubaysan ayay guriga ugu dhex dhaceen, waxayna ku qasbeen inay soo raacdo gaarigeedii. intaas kadib waxay u kaxaysteen dhowr meelood oo ah mashiinada lacagta laga bixiyo ee ATM-ka, iyagoo isku dayayay inay la baxaan lacagtii ugu badnayd ee suurtagal ah. intii dhibaatadani socotay, Eve waxay ka barisay inay sii daayaan, iyadoo ballan qaaday inaysan cidna u sheegi doonin, waxayna rabtay inay gurigeeda dib ugu laabato. balse iyagu qorshe kale ayay wateen. sida uu sheegay Dariya, waxay go'aansadeen inay dilaan maadaama ay wejiyadooda aragtay, iyagoo xitaa aan isku dayin inay wejiyada qariyaan. ugu dambayntii waxay u kaxaysteen waddo cidlo ah, halkaas oo ay dhowr xabadood ku dhufteen iyagoo adeegsanaya 2 bastooladood.
Deria wuxuu kaloo sheegay arrin aad u calool xanuun badan taas oo ahayd in wax yar ka hor intaanay dilin Evie ay ka codsatay inay duceysato balse beddelka inay naxariis u muujiyaan waxay u dileen si naxariis darro ah. Bishii afaraad ee sanadkii 2010, 2 sano kadib dilkii, ayaa Deria lagu helay dembigii lagu soo oogay. Heshiiskii uu dembiga ku qirtay awgeed xaakimku wuxuu ku xukumay xabsi daa'im halkii laga dili lahaa, iyadoo loogu daray 30 sano oo dheeraad ah. Markii xukunku soo baxay kadib, Deria wuxuu u soo jeestay waalidiintii Evie, isagoo ka raaligeliyey falkii uu geystay, wuxuuna qirtay inuu u qalmo ciqaabta lagu riday. Dhinaca kale, Lawrence wuxuu diiday inuu dembiga qirto, maxkamadayntiisuna waxay bilaabatay bishii 12 ee sanadkii 2011, inkasta oo uu qareenkiisu isku dayay inuu caddeeyo inuusan wax dembi ah lahayn. Xukunkii u dambeeyey iyo dhaxalkii Evie, qiraalkii Deria iyo caddaymihii tirada badnaa ee la helay waxay horseedeen in Lawrence dembi lagu helo, laguna xukumo xabsi daa'im. Laakiin sheekadiisu halkaas kuma ay dhammaan. Sanadkii 2013, maxkamadda rafcaanka ee gobolka ayaa laashay xukunkii Lawrence, iyadoo cuskanaysa go'aan kale oo dhigayay in xabsi daa'im bilaa cafis ah oo lagu rido dadka aan qaangaarin uu yahay mid aad u adag oo aan loo baahnayn. Sidaas darteed, waxaa loo oggolaaday maxkamadayn cusub. Markan, Lawrence wuxuu ahaa mid aad u hadal badan, isagoo maxkamadda u sheegay in qof kasta uu khaldami karo, wuxuuna ku adkaystay inuusan ahayn bahalkii ay dadku u haysteen. Inkasta oo uu sidaas yiri, haddana ma uusan muujin wax shalayto ah oo dhab ah. Ugu dambayntiina xaakimku wuxuu mar kale ku xukumay xabsi daa'im. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la xuso in Lawrence uu ka ahaa eedaysane kiis kale oo aad u naxdin badnaa oo la mid ahaa kii Evie. Bishii koowaad ee sanadkii 2008, oo ahayd bilo uun ka hor dilkii Evie, ayaa arday 29 jir ah loogu dhex dhacay gurigiisa, waana la dilay. Dilkiisa kadib, lacag ayaa lagala baxay xisaabtii dhibanaha iyadoo la adeegsanayo mashiinada ATM-ka ee magaalada ku yaal. Si kastaba ha ahaatee, mas'uuliyiintu ma ay helin caddayn ku filan oo Lawrence kula tiigsato dembigaas, waana laga laabtay eedaymihii loo haystay. Kiiskii Evie keliya ma soo jiidan dareenka dadka dalka oo dhan, balse wuxuu sidoo kale dhaliyey isbeddel macno leh. Bishii labaad, mudanayaasha gobolka North Carolina waxay soo saareen sharci cusub oo keenaya ciqaab adag iyo habraacyo adag oo loogu talagalay dadka ku lug leh dembiyada la xiriira kooxaha gaangiska ah. Sharcigan wuxuu dhaqan galay 1 bishii 12, wuxuuna khuseeyaa dhammaan dembiyada la galo wixii taariikhdaas ka dambeeya. Sharcigan waxaa si toos ah u dhiirigeliyey masiibadii ku dhacday Evie. Jaamacaddii ay dhigan jirtay waxaa lagu dhisay deeq waxbarasho oo loogu magacdaray iyada, waxaana dhexdeeda laga sameeyey beer xusuus ah si loo dhowro xusuusteeda. Bishii labaad ee sanadkii 2009, mid ka mid ah saaxiibada dhow ee Evie ayaa ka mid noqday dadkii u dambeeyey ee tartanka American Idol. Intii uu masraxa saarnaa, wuxuu sheegay in geeridii Evie ay ku dhiirigelisay inuu isku dayo tartankan, isagoo xusay in la'aanteed uusan marnaba heli lahayn dhiirigelintii uu ku eryan lahaa riyadiisa. Haddii aad u aragtay kiiskan mid xiiso leh, casharna ka baratay, ha ilaawin inaad calaamada like-ta inoo saarto muuqaalka, kuna soo biirto kanaalka. Waxaan soo gelinnaa muuqaallo ku saabsan dembiyada habeen kasta. Ilaa mar kale, iska jira oo feejignaan dheeraad ah muujiya.